midnimo badbaadinteediyo bulshooy waxaanahay booliiske 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 umada baxnaani toodii burcadii iyo tuugoobaya dadku kabaqinin eebbahayay magaw dhigtaane inaan bulshada u iftiimino dhacdadii habeen hore dhacday oo ahayd dhallinyaradaas sameeyey dembiga foosha xun kiisku wuxuu dhacay maqribka markii laga baxay nus saac meelahaas wuxuu ka dhacay ex control kabacdi halkaasaa xogta laga helay oo laga soo qaaday ninkii dhaawac ahaa iyaguna ay gaarigii kula tageen intaasba waxaa lagu jiray 24 saac gudahood in la helo kiisku soo dhacay iyo meesha lala aaday iyo sababta ay ula tageen gaariga iyo nuxurkiisa lagu jiray waxaan aad ugu mahadcelinayaa shacabkii ka qayb qaatay odayaashu ugu horeeyaan nabadoon mursal iyo odayaasha kale la socdaba ay si adag ula shaqeeyeen laamaha ammaanka gaar ahaan booliiska ay ula shaqeeyeen ciidamadii ka qayb qaatay oo inta badan hawshaas waqtiga ku bixiyana aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood ciidamada gobolka bari jooga iyo dabagalka gaarka ku hayana aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii ay qabteen iyo waajibaadkii xaq loogu lahaay ay guteen sidoodaba ciidamadu waxay u xilsaaran yihiin inay ammaan ka shaqeeyaan hantida dadka badbaadiyaan dadka naftooda badbaadiyaan marka ilaahay baa ku mahadsan inuu nala kodliyey dambiilayaashii gaarigii hubkay wateen iyagii dhammaantood inay gacanta ku jiraan iga la geyn doono maxkamaddana loo gudbin doono markaa ka bacdina ay jawaabtooda helayaan ninkii dhaawacmay iyo ciddii wax gaareenna waxaan leenahay allah u boogadhayo aan leeyahay dadka shacabka ugu baaqaya gobolka bari gaar ahaan degmada Boosaaso gaar ahaan dhoweeye waxaan ugu baaqayaa nin waliba inuu dhoweeye wata gaarigiisa inuu taxi lambar ku dhigo weeye waadaxa oo la garanayo dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa mar labaad inay arrinta ay hirgeliyaan oo meesha leh ay aadaan waxaan kaloo ugu baaqaynaa xilli kasta inay ka fishaan cid kasta oo qori sidata ama ay ka shakiyaan inaysan lacag ahaan u qaadan waxa weeye ay iska hubiyaan hubintu waxay ku jirtaa badbaadadaada iyo gaadiidkaaga meesha gaariga hadda laga keenay waa garas toga garas weeye qof kasta oo meel jooga waxaan ka codsanaynaa inuu si dhow laamaha ammaanka booliiska magaalada ka shaqeynaya ula shaqeeyaan arrintaas oo runtii arrin foolxumo ahayd nimankaas oo aan muddo aan ku daba jiray intii dhirkiisku dhacay booliiskana aan maxaan ku raadaa arrintiisa la wadnay inay maanta gacanta ku dhigaan taliyaha qaybta Xuseen iyo dhammaan ciidanka waa uga mahadcelinaynaa kiiskaasna insha Allah soo loogu guuleystay waa ku mahadsantihiin waxaan insha Allah raalli ku nahay in maxkamad la mariyo kiiskaas waajibkiisa la mariyo insha Allah dhalinyaradaas oo ah dhalinyarada ka soo jeeda qoyskan odayaasha u nahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin taliyaha qaybta Boosaasood juhdi badan buu galiyay ciidamadiisu waana ku mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaadba alxamdulilah rabbil caalamiin aad bay ugu mahadsan yihiin taliyaha qaybta saraakiisha ciidamada adeeganka askarta dhammaan intii ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin shaqadooda way guteen aad bay ugu mahadsan yihiin waa ahaynaa gaarigii uu la fiican yahay wixii uu qabo iyo dib baan ka eegi doonaa laakiin hadda aad iyo aad in badan baan boqolkiiba boqol u mahadcelinaynaa way mahadsan yihiin ciidamada dhammaan Puntland iyo saraakiisha iyo qaybta gobolka bari iyo taliyaha qaybta intaba ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad